السلام عليكم كسو دوادا كنالك عبد العزيز بورلي موضوعنا maantana waxaanu kaga hadli doonaa dilalkii ugu khatarsanaa taariikhda Alexander Litvinenko waxa uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa hay'adda sirdoonka Ruushka ee KGB balse si hoose ugu biiray hay'adda sirdoonka Ingiriiska ee M16 sanadkii 2006 sirdoonka dalka Ruushka ee KGB ayaa diyaariyay shirqool lagu khaarijinayo Litvinenko oo muddo sanado ah sirtii Ruushka gacanta u geliyay sirdoonka Ingiriiska M16 sirdoonka Ruushka ee KGB waxa uu suurta gashay inay xiriir la yeeshaan shaqaalihii hodheelka cuntada ee uu deganaa Litvinenko saddex isku daydil ayaa fashilmay isku daygii afraad ayaa u suurta gashay inay koob shaah ugu dareen sun culus oo shucaac ah isagoo ku sugan qolkiisa hurdada ee hodheelkii uu deganaa saddex wiig kadibna dhakhtarka ayaa la dhigay kadib suntii ayaa uu u dhintay Malcolm X waxa uu ahaa nin madow ah oo muslim ah waxa uu ahaa ninkii ka dambeeyay ururkii awoodda dhaqdhaqaaqa dadka madow ee Mareykanka sanadihii 1960 ilaa 1970 waxa uu bilaabay halkan xorriyad dadka madow ee Mareykanka ah sidii kuwa cad ula sinaan lahaayeen waxa uu xubin ka ahaa ururka islaamka ee Mareykanka isagoo khudbad ka jeedinaya meel fagaara ah ayuu nin hubaysani ku dhex dhuuntay dadkii dhageysanayay khudbadda kadib rasaas ayuu ooda kaga qaaday halkaasi ayuuna ku dhintay ninkani waxa uu ahaa cunsuri nacab dadka madow Robert F Kennedy waxa uu ka yaraa John F Kennedy jaamacadda Harvard ayuu ku bartay sharciga lawyerka ama qareennimada dawladii John F Kennedy waxa uu ka ahaa xeer ilaaliyaha guud Robert wuxuu isu sharaxay jagada madaxweynaha dalkiisa horaantii sanadkii 1968 ayuu u tartamay kursiga aqalka sare ee Koongareeska waanu ku guuleystay isla sanadka dabayaaqadiisii ayuu u tartamay kursiga madaxweynenimo isagoo ku jira ololihii doorashada oo khudbad u jeediyay taageerayaashiisa hodheelka Ambassador ee magaalada Los Angeles markii uu khudbadii dhameeyay isagoo gacan qaadaya dadkii dhageysanayay ayuu nin la oran jiray Sirkan soo dhaxgalay dadkii salaamayay markaasuu bastoolad ku toogtay goobtii ayuu ku geeriyooday ifka waxa uu kaga tagay 11 caruur ah oo isugu jira gabdho iyo inamo ninkani waxa uu ahaa Falastiini kaga aargoosanayay taageerada Mareykanku siiyay Israa'iil dagaalkii 6 cisho ee sanadkii 1967 John Lehman waxa uu ahaa xubnihii aasaasay shirkadda Beatles oo ah shirkadda ugu caansan ee soo saarta cinjirka waxa kale oo uu ahaa xubin u ololeeya nabadda wuxuu ahaa afmiishaar Ilaahay hibo u siiyay in uu dadka si fudud uga dhaadhiciyo nabadda iyo horumarka waxa uu doodo badan la galay dadka soo horjeeda fikirkiisa kadibna wuxuu kaga xoog batay doodii waxaanu sumcad ku helay hadal yaqaannimada sanadkii 1980 isaga oo maraya meel wada ah magaalada New York ayuu magaciisa ugu yeedhin isagoo kor u dhawaaqaya kadibna wuu eegay waxaanu arkay nin la oran jiray Mark David oo ku soo socda oo ay u soo direen kooxihii ka soo horjeeday markii uu soo gaaray Mark ayuu toogasho ku dilay waxa uu ku dhuftay 4 xabadood Mark ayaa dhex fadhiistay dariiqii uu ku dilay John isagoo sugaya in la xidho Lee Harvey Oswald ninkani waxa uu ahaa ninkii fuliyay dilkii madaxweynihii Mareykanka ee John F Kennedy sanadkii 1963 waxa dilay nin la oran jiray Jack Ruby Lee waxa lagu toogtay magaalada Dallas ee dalka Mareykanka dilkani ayaa ka dhacay xarunta guud ee booliska magaaladaasi xarunta booliskan ayaa si weyn loo ilaalinayay booliska Mareykanka ayaa jahwareer ka qaaday sida fudud ee ninkaasi u toogtay sidoo kalena uu fuliyay dilka iyadoo xaruntan ammaankeeda si weyn loo ilaalinayo xirfadda dilkan ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid heer sare ah oo ay adag tahay inuu qof shicib ah qorsheeyo